boqor Muslim ah oo noqday taajirkii abi dunida soo maray. Muuse Mansa boqorkii ugu hantida badnaa qarnigii 14aad ee maamuli jiray galbeedka Afrika. Hantidiisa aad ayay u fara badnayd waxaana ku tiirsanaa guud ahaan dhaqaalaha uu dalka ku taagnaa. Dhaqaalaha uu haystay Muuse waxa uu ahaa mid ballaaran, lacagihiisuna ay yaaleen meel walba, taas oo sababtay xitaa in aan la xisaabin karin tiro ahaan inta ay la ekayd lacagtiisa. Sidaasina waxaa yidhi Randolph Church oo cilmiga taariikhda ka dhiga Jaamacadda California. Dhanka kale, qoraal lagu magacaabo Jacob Davidson ayaa buug uu ka qoray sanadkii 2015 taariikhda boqorka reer Afrika ahaa ku tilmaamay Muuse inuu ka taajirsanaa qof walba oo niyadda ku soo dhici kara. Sanadkii 2012, website laga leeyahay Mareykanka oo ka faallooda dadka taajiriinta ah ayaa dhankiisa hantida Muuse ku qiyaasay $400 bilyan. Ha yeeshee, dadka ku xeel dheer taariikhda dhaqaalaha badi waxay isku raaceen in boqorka hantidiisa aan tiro ahaan lagu jaangoyn karin. Muuse Mansa ayaa ka dhashay qoys boqorro ah sanadkii 1280. Inta aanu xukunka qaban, waxaa maamuli jiray boqortooyada Mali walaalkii oo lagu magacaabi jiray Mansa Abubakar oo boqortooyada haystay ilaa 1312. Ugu dambeyntii, boqor Muuse ayaa ka dhaxlay boqortooyada walaalkii markii uu xukunka la wareegay. Waxaa si weyn u ballaartay xukunkii boqortooyada taa oo horseeday in la helay dhaqaale fara badan iyo kheyraad dahab ah.